waxaa jira buug la yidhaahdo The 7 Habits of the Most Successful People. 7 astaamood oo ay leeyihiin nolosha adduunkan dadka guusha ka gaadhay. kow astaanta koowaad maxay tahay hadaba waxa weeye we have to be proactive not active. We have to be proactive. waxa la yidhi tukow waxa la yidhi xun shay goormaad wax dareentaa waxay tiri markuu dhagax igu dhaco midna igu soo socdo. waxa la yidhi tukow adna goormaad wax dareentaa wixii markay laba nin is eegaan dareenka tukaha inaynu yeelano horta waa iga dartaaran oo dhibaatadu wixii dhibaatadu intay soo dhowday soo dhabacaan ay soo dhowdaan lama dhagaysanay waa inaad dhabu dareentaa ha ka dhuumanina waa inaad sii ogaataa dhibaatadu inta ayna kugu dhicinay soo fooleeday waa inaad ogaataa waa ta koowaad waa ta labaad begin with the end mind shaqada aad qabanaysaa barbilowgeeda ilaa bardhamaadkeedu halka uu yahay waa inaad aqoonteedii iyo xirfadeedii iyo rabitaankeedii aad yeelataa haddii kale wuxuu yidhi marka aanad hamoon timacada wuxuu yidhi marka aanad hamoon noloshu waa mooyi dabadeed xaggee loo socdaa garan maayo mid unbaa soo dhaqaaqa yidhi hoolkan iska kaalaya unbaa la yidhi ummadda haddaynaan wax ku kordhinaynin oo hadafka la isugu yimi aynaan ka midaysnayn way adag tahay sida guul loo gaadha marka yoolka aad ku socoto waa inaad yeelataa 3 we have to put first thing first maxay tiraa dhacamo geel siday u kala horeeyaan baa loo kala guraa soo ma xaajadu waa inaad taladu siday u kala horeyso ee shaqada loo kala hor qabanayo iyo go'aanka aad qaadanayso aad u gogol xaari taqaana xoolaha qura looma sahamiyo hadalka xitaa waa loo sahamiyaa wixii timacada markaan sahamiyaabaan halkii sayr la mariya aan idinka yara qosliyo waxa nin bay naagtiisii hinaasta say tiri waryaa haddaan dhinto maad guursan hadduu haa yidhaa kabbaa ku dhici amba girgire ilaan dhimashadaydun baad sugaysay baa leen meesha taale xariif buu ahaayo wuxuu yidhi xaaji haddaad dhimato waan waalan say tiri haddaad waalata maad guursan suu yidhi nin waalan wax kasta ka filo means waxaan ka wadaa go'aanka aynu qaadinayno anoo guddoomiye iyo anoo sheekha iyo anoo suldaanaa yeelay uun ma ahee waa inaad go'aankaaga sababayn kartaa reasonable sababta aad u leedahay go'aanka aad u qaadanayso waa inaad sababayn kartaa ta kale we have to think win-win wax anna iidana ummaddana u dana deegaankana u dana waa inaan ka shaqeeya horta danta guud wuxuu yidhi danta guud dubaha lagu dhuftay iyo dakharadii gaadhay waar ka daaya weli maanan maqaldumiya mooyaane soomaaliya waxay geesi u taqaanaa ninka dilka iyo dhaca iyo dhiigga ummadda caadaystay waa xaaraan ninna horumar kuma gaadhi kara hilib walaalkay un dilay waa i walaal la'aana guulma we have to believe that taa waa inaynu aaminaa if iyo aakhiro dhiig ibna aadan midna lagu liibaani maayo we have to think laakiin danteenna inaynu ka shaqaynaay waa hawl innaga inoo taala ta kale synergizer waxay tiraa soomaalidu far quri fool ma maydho teamwork maxay tiraa rag iyo hangoolba waa la ururiya mar un baa loo baahdaa ibna aadanka ilaahay baa karaameeyey ka rabnaa ibna aadan baa cid walba ku jirta cid walba ilaahay baa qadaray cid walba ilaahay baa sharfay cidna cid sharafteeda ibna aadannimo ugama daba fadhido kanaa laandheera kanaa laangaaba kana war ummadda yaan la tafaariikhaynin jilibkan ma nihin suxulkanaynu nahay quraantanaynu nahay ilaahu hana tafaariikhaynin jimlad ahaan ibna aadantinimo waa inay inoo taagnaataa ibna aadantinimo waa inay inoo taagnaanaa innaga go'aankeennu meel sare oo meeqaam sare ah basasha marka la diiro aakhirka waxaa loo tagaa qaybaan la cunin soo maha ummaddan haddaad dhisho waxaad u tegi cidaan ku anficin I'm telling you the truth markaa duuduub waa inaynu ummaddeenna ku qasbannaa ta kale we have to be a listener qof wax dhagaysta oo wax hubsada oo aan go'aanka iyo talada la degdegin waa inaad noqotaa waxay tidhaa muxuuha gabaygii tala waxay hagaagtaa markii la hojiyaa wiig marka dad la iska dilo Soomaalidu waxay tiraa waagu haynoo bariyo bil amba 15 cishaa la qabsada laba sababood labadaba way tahay
qolada wax dishay waa inay magtii u soo diyaar garowdo bixinteeda qolada wax laga degayna waa inay yara qabowday degto marka arrintu meel sax ay ku saxmaysaa laakiin haddaad tidhaa qabuurta dusheedii baan magta geyn adna waa lagugu dari so we have to be what and knowledgeable what we are doing waxa aynu qabanayno waa inaynu aqoonteedii iyo xirbadeedii nahanaa ta kale khalad wuu dhici wax kastaana wuu dhici wax walbana waynala soo kulmi waa inaynu duuduub ku liqnaa daxalka laabteena xumaanta iyo waxa inagu jira waa inaynu ummadda iska cafinaa oo aynaan cuqdad isu haynin oo aynu ilaahay baa qadaray kaga gudubnaa dhibaatooyinka iyo maaragtay hadba jaranjarooyinka inala soo darto ta kale waxa iga dardaarana inaynu iska jirno gaaladu waxa ay yidhaahdaan self defeating beliefs inuu qofku isagu iska guulaysto anigu qof dadka ila yaabi haddaan taa yeelo qof nasiib lama ihi wallaahi mar baan isku dayay oo taan kala kulmay hanuunbaa og baabacadaati ma kaday fear change inaad isbeddelka laftiisa ka baqdo dadka waan ka hooseeyaa cidna cid kama hooseyso ibni aadantinimo cid waliba way siman tahay marka waxa weeye wuxuu ninku yidhi sinaan mayno hadraawi adna buri sarrayntiisa sadka waad wanaagtahay marka waxa iga dardaarana kow waxa aan doonayaa inaan idhaahdo adeerow qayrkeen dayuuxuu fuulay inagu geed fuul xiitaa iskumaynaan diin haddaynu soomaalina wuxuu yidhi quruumaadkan laga qayliyey ee qaaq wax kaga siiyey nin waliba mar buu qaadan jiray qaansa iyo leeb qarfa iyo mar buu seexan jiray qalanqal hoostii ha yeeshee quluub wada jirta ayaa qaniya sheekhow qalbigaa laga wadaalmo horumarku waxa uu ka yimaadaa biqalbi saliim qalbiga wanaagsan haddii uuna qalbi wanaagsani inagu jirin if iyo aakhiro midna ku liibaani mayno ee taa ku talagala cidayna cid fartaha ku fiiqin ee adigu gudahaaga dib isugu noqo heblaayo amba hebelow dhib baad qabtaa markaan leeyahay farta cid ku fiiqayo saddex farood anigay dhankayga u soo jeedaan in badan inaan anigu dhankayga ishubsado ayay fartayda iyo tilmaantayduba sheegaysa marka waxa iga dardaarana wuxuu yidhi cirka nimanka sahanka u diray ee caadka ka hayaamay cadceedda iyo dayaxa dowladahan caawa kala sheegtay caynkeenna soo wada mare iyo caado liiti ah cilmigay ku gaadheen rag waa ku cibro qaataaya carfu wuxuu ka muuqdaa shacbiga caafimaad qaba horumarku wuxuu ka yimaadaa gudahaago wanaagsanaada ee meel kale kama yimaado ree hebel baa naga haysta jilibkana la kari laayahay ree sogsog iyaga hadalkooda daa qurac iyo galool meel laga maray ma jirto wakhtigeenna yaynaan ku limin cayda suuqyada cimrigeenna haddaynu ku dhammaysanno cid wax ka sheegiduun guul gaadhi mayno marka walaalayaal waxaan ku soo koobaya hadalkaygii dhammaanteen ilaahay qalbiga haynoo nuuriyo ilaahay midnimada haynoo xoojiyo ilaahay walaaltinimada haynoo xoojiyo dhammaanteen qayb walbo inagaga aadan inaynu cid walba qayb baa kaga aadan inay qaybteeda ka soo baxdo waa iga dardaaran wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu